kulan wacan kuna soo dhawaada markale warkii oo faahfaahsan muwaadiniin u dhashay dalalka Morocco iyo Israa'iil ayaa la soo taagay maxkamad ku taala dalkani Kenya iyadoona lagu eedeynayo inay tababarasiinayeen kooxo ka tirsan xarakada al-shabaab saddexdan qof oo xidhnaa muddo 3 sano ah oo mid ka midihii uu ka soo jeedo dalka Morocco iyo labada kale oo ka soo jeeda Israa'iil ayaa lagu eedeeyay inay tababarasiinayeen kooxo ka tirsan al-shabaab ayaa loogu yeeray maqraatiyad difaaca kadib markii ay maxkamaddu ay dalbatay in kiiskan si degdeg ah looga warbixiyo booliska ayaa labadaasi ku eedeeyay inay ka yimaadeen Soomaaliya iyaga oo ka soo gudbay xuduudda Kenya ay la leedahay Soomaaliya eedeysanayaashan ayaa lagu kala magacaabaa Jaberani Ahmed Aliis Cusmaan iyo Maxamed Saliim Alias Daoud ayaa lagu xiray sanadkii 2014 iyaga oo dalka Kenya ku jooga sharci darro laguna eedeeyay falal argagixiso isla markaana ay ururiyeen warbixino qorsheysan oo argagixisnimo Cusmaan waxaa lagu eedeeyay 3 dembi halka Daoud lagu eedeeyay 8 falo argagixiso la xiriira waxaa hore loogu xukumay 1 sano oo xabsi ah maadaama sharci darro ay ku joogeen gudaha Kenya kiiskan ayaa la sheegay in la dhageysan doono mar kale 8 December ee 2017